السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. اسكو صلاة شوعا waxaan soo gaarnay gabagabadii iyo gunaanadkii argomentaha sideedaad qaybtiisa 21aad ee barashada patente biga. waxaan uga hadlaynay segnali di indicazione. insha Allah biin ilaahay karim waxaan filaynaa wax badan ka wada faa'iido doontiin kan maadaama uu noo dhamaaday ama aan dhameyn rabnaa caawa ama maanta. insha Allah waxaan bilaabaynaa argomentada si xiga أنا سلسة عنا موقعك لايك نصار أصحابتين كلا وداعا عم بلعبنا عن شركين. Il segnale raffigurato si può trovare all'interno di un segnale di direzione o di bivio stradale. وحير il segnale raffigurato signal كان si può trovare وحن كلا كل مكرنا all'interno di un segnale signal كلا di direzione o جهوين كنو شيء o di bivio stradale أما bivio stradale vero perché si può trovare, ok? Il segnale raffigurato indica il numero del cavalcavia. Signal kan wuxuu noo sheegayaa wiri il segnale raffigurato signal ka meesha ku sawran indica wuxuu noo sheegayaa il numero lambarka del cavalcavia lambarada cavalcavia oo meesha ku yaala 55 cavalcavia ku taalooda falso perché waa waxaa la autostrada internazionale 55 alla, ok? Quindi numero del cavalcavia falso. Il segnale raffigurato è di conferma autostradale. Signal kan wuxuu noo xaqiijinayaa ama aan ka xaqiijinaynaa wiri autostradale perché autostrada uu ku dhagan yahay ku dhagan yahay inta badan ku yaala isticmaala uu ku dhagan yahay macnaha ama wadada meeshaas uu ka taagan yahay soma wuxuu noo sheegayaa magaalo kasta distance inta ay noo jirto. Firenze 180 km, Bologna 285, Milano 472, quindi conferma autostradale vero, ok? Il segnale raffigurato indica l'itinerario internazionale numero 55 vero itinerario wadale waaye ama dariiq oo caalamiya wada caalamiya, ok? Internazionale vero. Il segnale raffigurato indica per ogni località il numero della strada da percorrere. Falso è sababta wuxuu yiri il segnale raffigurato signalkan indica wuxuu noo sheegayaa per ogni località local kasta ama magaalo kasta il numero dell'autostrada lambarka autostradaha da percorrere oo maxaa la yiraahdaa aan ka tagi karno. Falso è perché la distanza di ogni località, ok? Il segnale raffigurato è posto sulla strada extraurbana. Signal kan wuxuu ku dhagan yahay oo dhahay strada extraurbana vermia falso è perché signalka verde waaye marka maadaama uu verde yahay wuxuu ku dhagan yahay autostrada, ok? Il segnale raffigurato indica il tipo ed il numero di strada percorso. Il segnale raffigurato signal kan indica wuxuu noo wargelinayaa il tipo nooca ed il numero iyo lambarada ay kala yihiin ama inta ay gaarsiin yihiin di strada percorsa oo wadada la rabo in la maro. Falso è perché SS waxa waaye allora il numero il tipo è nooca wadada ay tahay il numero iyo lambarkeeda da strada percorsa vero waaye perché waxa la dhahaa strada statale numero 2 marka il tipo nooca wadada waxa waaye strada statale. Il numero lambarka wadadana waxa waaye lambar 2 vero, ok? Il segnale raffigurato se di colore blu si trova su strada extraurbana. Il segnale raffigurato signal kan se di colore blu hadduu kalarkiisu u yahay blue si trova waxaan kala kulmi karnaa ama lagala kulmayaa su strada extraurbana wadooyinka extraurbana principale, ok? Vero è perché hadda verde hadduu yahay autostrada è blu hadduu yahay strada extraurbana principale vero, ok? Il segnale raffigurato indica che stiamo percorrendo la strada statale numero 2. Allora il segnale raffigurato signal kan indica wuxuu wargelinayaa ama noo cadeynaya che stiamo percorrendo inaan saarannahay wado la strada wada statale magaceedu yahay statale numero 2 lambar 2 uu yahay wadadaas vero waaye. Okay. Il segnale raffigurato indica il numero della classificazione internazionale della strada. Wuxuu yiri il segnale raffigurato signal kan indica wuxuu noo wargelinayaa il numero della classificazione
aqoonsiga lambarka oo wadada internationalada ah vero waa perché numero 155 insomma. Il segnale rovgrato si può trovare all'interno di un segnale di preavviso di bivio stradale. Signalkan waxaan kala kulmi karnaa uu yiri ama uu ku dhex yaali karaa all'interno bartanka di un segnale o signal inuu ku dhex yaalo di preavviso o wargelina di bivio stradale vero asaad qiimo badan. Okay, il segnale rovgrato identifica le strade extraurbane. No, non è la strada extraurbana ma autostrada internazionale. Ok, falso. Il segnale rovgrato indica che mancano 55 km al confine di stato con l'estero. Falso è esatto qiimo badan perché il segnale rovgrato signalkan indica wuxuu wargelinayaa che mancano inay nooga dhiman tahay 55 km 55 km al confine xadka di stato o wadanka con l'estero o wadanka kale laga galayo estero dibadda. Falso perché autostrada internazionale numero 155 alla. Ok, falso. Il segnale rovgrato indica la uscita autostradale numero 55. Signalkan wuxuu noo sheegayaa la uscita meesha looga baxayo autostradaha oo lambarkiisuna yahay 55. Non è la uscita ma autostrada internazionale numero 55 waa asaab qiimo badan. Quindi falso. Ok, il segnale rovgrato indica che uscendo del primo casello autostradale è possibile raggiungere tutte le località indicate. Il segnale rovgrato signalkan indica wuxuu wargelinayaa che uscendo del primo casello, ok, è possibile waxaa suurtagal ah uu yiri raggiungere inaan tagi karno tutte le località indicate. Falsissimo perché mar haddaa casella autostrada haddaa ka baxdid ama gashid hal jiha lay raaci kartaa sooma raggiungere tutto. Il segnale rovgrato è posto su strade di importanza internazionale. Allora il segnale rovgrato signalkan wuxuu ahaaday posto meel su strada importanza wadda muhiima internazionale ah o internazionale vero. Siamo? Il segnale raffigurato, il segnale rovgrato indica che mancano muxuu yiri 180 km per l'area di servizio di Firenze. Area di servizio di Firenze waxaa nooga dhiman 180 km. Ma dhici kartaa? No, non è area di servizio ma Firenze. Secondo me può essere vero. Falso comunque, non è area di servizio. Il segnale rovgrato indica la velocità massima da tenersi su quella strada. Il segnale rovgrato indica wuxuu wargelinayaa la velocità speedka massima ugu badan la ogol yahay da tenere la rabo in lagu socdo su quella strada wadadaas. Falso perché autostrada Unione Europea Internazionale waaye numero 55 non è massima velocità. Ok, you feel me bro? Il segnale rovgrato preavvisa una direzione consigliata. Non è una direzione consigliata ma una direzione obbligatoria perché signalka gawaaridan meesha ku sawiran isjiidka iyo camionka waxaa qasab ku ah fallaarta meesha u tilmaamayso inay raacaan. Non è consigliata. Consigliata lagu kula talin camal waaye laakiin obbligatoriana qasab ay ku tahay. Quindi consigliata falso. Il segnale rovgrato indica che sono stati percorsi 55 km dal punto di origine dell'autostrada. Il segnale rovgrato indica wuxuu wargelinayaa che sono stati waxaa ahaatay percorsi 55 km inaan soo dhaafnay 55 km dal punto di origine marka laga soo bilaabo meesha aan safarka ka soo bilaabnay dell'autostrada wadano autostrada internazionale numero 25 alla. Ci siamo? Il segnale rovgrato indica in autostrada la distanza della località raggiungibile. Vero perché wuxuu dhahay il segnale rovgrato signalkan indica wuxuu wargelinayaa in autostrada markaa saaranahay la distanza masaafooyinka della località oo magaalooyinka raggiungibile magaalooyinka aan rabno inaan tagno mise magaalooyinka aan tagi karno inta inoo jiraan Firenze 180
Bologna 285, Milano 475 km, ok? Vero. Il segnale raffigurato riporta la località con le relative distanze in chilometri. Il segnale raffigurato signalkan riporta waxaa ku yaalo yiri ama uu cadeynaya la località magaalooyinka ama macnaha xarumaha con la relative distanza sidoo kale iyo inta masaafo inoo jiraan in kilometri ahaan u dhahay. Vero waa saab qiimaha badan. Tutto chiaro? Il segnale raffigurato indica i chilometri già fatti dalla località indicata. Il segnale raffigurato signalka indica wuxuu noo sheegayaa i kilometriyaasha già fatti oo already aan soo dhaafnay dalla località indicata magaalooyinka meesha ku sawiran inta kilometri aan kasoo fogaano dhaa. Falso waa perché inta kilometri oo nooga dhiman waa. Ci siamo? Ok. Il segnale raffigurato è posto su autostrada. Signalkan wuxuu ku yaalaa u dhahay autostrada. Vero waa tutto chiaro perché waxaan kala kulmaynaa autostrada maadaama uu verdi yahay. Ok. Il segnale raffigurato indica che per raggiungere Milano u dhahay bisogna percorrere l'autostrada numero 472. Non è vero perché per raggiungere Milano mancano 472 km. Non è autostrada numero 472. Falso è. Siamo? Il segnale raffigurato obbliga tutti i veicoli a proseguire il diritto. Non è tutti i veicoli, ma i veicoli che rappresentati in quella zona lì. Ok? Ok? Marchi, il segnale raffigurato indica che mancano 180 km per Firenze. Ok. Il segnale raffigurato signalkan indica wuxuu noo wargelinayaa che mancano inay nooga dhiman tahay 180 km 180 km per Firenze. Firenze inaan tagno 180 km distanza. Vero asxaab qiimaha badan. Ok. Il segnale raffigurato indica che la strada su cui viaggiamo è una strada statale. Allora vero è perché wadada magaceeda SS waxaa la strada statale. Ok. Marka wuxuu yiri il segnale raffigurato signalka meesha ku saran indica wuxuu noo wargelinayaa che la strada wadada su cui viaggiamo oo aan ku safrayno ama aan saaranahay waxaa waaye una strada statale. Vero è. Ok. Il segnale raffigurato consiglia a tutti i veicoli di seguire la direzione indicata dalla freccia. Falso è. Sababtoo ah il segnale raffigurato signalkan consiglia wuxuu kula talinayaa tutti i veicoli dhammaan gawaarida di seguire inay raacaan la direzione jihada indicata ay tilmaamayso dalla freccia fallarta. No, non è tutti i veicoli. Poi anche maahan macnaha segnale di consiglio ma un segnale di obbligo gawaarida meesha ku sawiran waayo. Ok. Falso è. Il segnale raffigurato indica un itinerario di strada internazionale. Wuxuu yiri il segnale raffigurato signalka indica wuxuu noo wargelinayaa un itinerario dariiq waayo. Ok. Di strada oo wada internazionale oo caalami ah. Dariiq caalami waayo dhahay. Ok. Vero waa sababtoo ah waxaa ku yaal Unione Europea 55 wada caalami oo Yurub dhan ka dhaxaysa camal waayo. Ok. Vero asxaab qiimaha badan. Ok. asxaab qiimaha badan casharkeena saas ayaan ku dhamaynay. waa argomentihi 8aad qaybtiisa ugu dambeysay qaybta 21 qayb oo ka koobnaa. insha Allah waxaan bilaabaynaa argomentaha xiga. aan la socono muuqaalka like la saaro si uu meel fog noogu gaaro. hadda waxaan fiirinaynaa natiijada. Ok. asxaab qiimaha badan sida idin muuqataba waxba maana qaldin. casharkeenana saas ayaan ku dhamaynay. wuxuu ahaa argomentaha 8aad waxaan uga hadlaynay segnali di indicazione si qurux badan oo noogu dhamaaday. insha Allah billahi alkareem waxaan filaynaa wax badan ka wada faa'iideen. waxaan bilaabaynaa argomentaha si xiga oo 9aad ilaa 25 ka argomentaan ka dhamayno. asxaab qiimaha badan muuqaalka like saara markaan idin leeyahay. muuqaalka mar hadda like saartaan waxaa arkaya dad cusub meel fog ayuu gaarayaa. insha Allah wada maasantiin. ballanteena waa casharka xiga. assalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatu.